habeennimadii xalay dalkan Ireland waxaa laga masaafuriyey dad gaadhaya 52 qof kuwaasi oo loo masaafuriyey dalka Georgia oo marar horena sidan oo kale ay markaasi diyaarado ugu geeyeen dad halkan sharciyo looga diiday. wasaaradda cadaaladda Ireland ayaa xaqiijisay in 52 qof ay ku jiraan 7 caruur ah lagu masaafuriyey duulimaad gaar ah oo xalay ka baxay garoonka diyaaradaha ee Dublin laguna dejiyey magaalada Tbilisi ee dalka Georgia saqdi dhexe ee xalay. dadkaasi la masaafuriyey ayaa ka badan 45 qof oo waaweyn, 35 ka mid ah waa rag, 10 waa dumar, 7 kalena waa caruur. dhammaantoodna waxay ahaayeen caruurtu qoysaska ayay ka tirsanayeen. tani waa howlgalkii lixaad ee masaafuriinta ah ee sanadkan lagu fuliyo duulimaad gaar ah nooca loo yaqaano charter fly, taasi oo tirada guud ee dadka sanadkan duulimaadyada noocana laga masaafuriyey ka dhigaysa 205 qof. sidoo kalena 146 qof oo kale ayaa la masaafuriyey duulimaadyo ganacsi oo caadi ah. wasaaradda cadaaladda ayaa sheegtay in duulimaadku uu fuliyey Air Partner Ltd qiimihiisa uu ku kacayna uu ahaa $187,625 €5 ayaan u jeedaa, inkastoo kharashka rasmiga ee dhammaystiran aan weli la shaacin. wasiirka cadaaladda Mr. Jim ayaa sheegay in masaafuriintu sii socon doonto inta ka dhiman sanadkan, isagoo ku celiyey in qof kasta oo laga diido codsiga magangelyada lagu khasbi doono in uu dalka ka baxo haddii uusan isagu si iskiisa uga tegin. wasiirka ayaa sidoo kale xusay in ilaa iyo 3,870 amar masaafurina la saxiixay sanadkan, taasi oo ka dhigaysa tiradii ugu badnayd ee Ireland laga masaafuriyo muddo ka badan 20 sano. wasiirkan wuxuu carabka ku adkeeyey in dadka reer Georgia ee sida sharciga ah ugu nool Ireland ay soo dhaweynayaan islamarkaasina door weyn ay ku leeyihiin dhaqaalaha bulshada dalkani. dadka la masaafurinaya ayaa waxaa duulimaadka ku wehelinayay booliiska, howlwadeennada caafimaadka, turjubaano, kormeerada xuquuqda aadanaha si loo hubiyo habraaca masaafurintu inuu dhammaystiran yahay. habeennimadii xalay dalkan Ireland waxaa laga masaafuriyey dad gaadhaya 52 qof kuwaasi oo loo masaafuriyey dalka Georgia oo marar horena sidan oo kale ay markaasi diyaarado ugu geeyeen dad halkan sharciyo looga diiday.